fanaanada king jaamac waxa waa ninka guursanaya nin taajir waaye waxa waa nin mataqaanaa oo waxa waa ganacsada weyn waxaas wax ka jira malaha shariifka xog fadhiso boqol shariifa ugu maanaysin ninkan shirkad wuxuu ka yahay maareeye taqaana gudoomiye ku xigeen walaalkiis asaga ka weynaa shirkadda taqaana madax ka ah oo gudoomiye ka shirkaddan waxa waa shirkad oo muddo 30 sano jirto haddana waxay ka mid tahay shirkada ugu weyn ugu caansan mataqaana Somaliland odaygaas Allah naxariis Allah siiyo odaygaas aan shirkadda asaan iskala shirkadda ilmihiisuna ku wareejiyo oo Xuseen qayb uu ka yahay Xuseen ganacsado oo shirkadda u shaqeeyo waaye mataqaana waa maareeyaha shirkadda waaye laakiin ma ganacsado gooni u taagan mana aan inta taajir ilaa xoolo siin ma aan taas boqolkiiba confirm way saas ra barnaamijkan aan kugu sharaxo magaciisa saddexan mataqaana Xuseen iyo guurku soo mar waxaan idin sheegi doonaa mataqaana oo fanaanada king jaamac guursanayo sida ogtiin walaalayaal shalmay daraad habeenkeeda waatan ka soo hadlay aan leeyahay sideed u dhaca arooska Dubai ka dhaca waati shalay baraha bulshada badan ay ka soo hadleen ciwaankayga gala macnaa saacadan soo dhiga fiiriya ka fahmaysin sida ku sheegana tan idin ku sheega ninkan nin suuq waxa soo geliyo waa been ninkan taajir maahan ninkan ganacsado gooni u taagana maahan saas rabaa ku faayo ninkan yaa waay ninkan magaciisu waxa la Xuseen Ahmed mataqaana daahir baxsane waxa waay waa naanesta reerkan waay aad u culus waa Soomaali waa isaaq waxa waay habar awal waxa waay Sacad Muuse waay mataqaana odaygan dhalasa u jeedin odaygan waxa waay oo Xuseen ku xiga waay macnaha madaxweyne Muuse Bixi odayga iyo Xuseen ninka u dhaxay waay odaygaas dhalay ninkan geeska jirane waxa waay gudoomiye madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Somaliland Samaroonka wada taqaanin Muuse Bixi ku xiga odayga ku xiga odaygan yaa odaygan waxa la xaaji mataqaana Ahmed Daahir waxa waay nin waa sida mataqaana muxuu ahaa midkan hormood muqdisho kale jimcaalo kale Somaliland oo ka yahay ninkan odaygan waxa waay shirkad asaas shirkad wax badan ay shaqeynayso shirkad waxay qabato idin faa'iido doona shirkadda waxa la baxsan group Allah mataqaana Red Sea mataqaana waa shirkad aad u weyn waxay ka furan tahay Dubai waxay ka furan tahay mataqaana Somaliland Hargeysa iyo Berbera iyo gobolada Arabsi iyo Oman waxyaalo badan ay Ingiriis falo badan ay ku samaysay sidoo kale waxay ka furan tahay kilka shanaad dhinacan ka furan tahay dirdhaba hata waxa xafiis ugu furan Djibouti xafiis ugu furan wajaale ayadana waxa way ugu furan yahay shirkadda shirkad weyn waay taqaana odaygan asaasay oo Xuseen hadda maareeya oo ka yahay taqaana baxsan group waxa way waxay samaysaa taqaana magaciisa Xuseen waa soo wada xasar soo mar waxna soo wada shirkaddan walaalayaal waxay ka waxa way taqaana waxay keentaa alaabaha elektroonigada sida alaabta baabuurta motorada baabuurta sidoo kale taqaana ganacsiga kala duwan taqaana waxa soo dhan ay keentaa waxa way shirkaddan guriyana hata way dhistaa sidoo kale mataqaana odaygan wuxuu ku caanbaxay samafalnimada gargaar badan oo ka qayb qaatay masaakiinta waxa waay odaygan waa quudi jiray Allah naxariiso fudu Allah siiyo 2003 ku dhintay mataqaana aabe Ahmed Daahir in badan oo dhalay imiisu kamid yahay Xuseen kamid yahay mataqaana waxa waay odaygan masaakiinta dhan uu roon yahay waxa waay wax weyn oo ka Somaliland ka qaatay isbitaallo furay wuxuu furay mataqaana waxbarashadu qayb ka qaatay mataqaana xoolo dhaqatada hata ninkan gacan weyn oo ka geystay marka waa nin magac iyo miisaan hadduu qof ku leeyahay horta Somaliland waxa waay odaygan Allah naxariisto aabe Ahmed Xaaji aabe Ahmed Daahir ku leh nin noocaas waay waxa waay hooyo badan iyo dad masaakiin badan oo aad u caawiye oo ciidaha iyo soonki waxa waay joogto waay ilaa haddana waxa waay shaqadu ka tagay odayga wali Xuseen ahaayo oo dadka masaakiinta waxa waay samafal waa loo sameeyaa oo dhaqaalaha la siiyaa waxa lacag loo aruuriyaa oo mataqaana waxa waay shirkaddan kambanigan baxsan aad u gacan qabtaan masaakiinta horta kambanigan saas waay ganacsi weyn oo meel walba ay ku leeyihiin waa ku leeyihiin marka horta shirkadda waay waxay kamid tahay shirkada oo weyn oo Somaliland ay kamid yihiin baxsan group horta shirkaddan Xuseen wuxuu ka yahay maareeye ka yahay Xuseen Allah magaciisa abiis oo wada kasa Ahmed Daahir Allah Xuseen Ahmed Daahir waa magaciisa taqaana Xuseen waxa waay xaasar oo soo maray 2015 guursaday taqaana waxa waay gabar la dhaho hodan Ismaaciil Xasan oo isla Sacad Muuse taqaana aad loo yaqaano oo reerkeed aad loo yaqaano gabadhaas waxa waay ilmo u dhashay adiga waxa way kala tageen mataqaana waxa waay intaas ganacsigan iyo hawshan ku jiray marka waxa waay asaga waxa waay dibadda aada Taiwan iyo Japan iyo ninkan alaabta qalabka motorada baabuurta iyo waxa dhan ninkan heshiis la soo galay sidoo kale mataqaana shirkadahan oo Taiwan iyo shirkadahan Dubai iyo heshiis la soo galay ninkan xafiis aad u weyn Dubai ugu furan oo mataqaana markii Asia alaabta laga keeno hal marka la soo wada saaray kadibna berber laga soo dejiyo ninkan ana madax u Xuseen madax u laakiin walaalkiisa shirkadda gudoomiye Xasan gudoomiye marka Xuseen waa maareeyaha shirkadda baxsan group waana gudoomiye ku-xigeenka markuu odayga dhintay gudoomiye ku-xigeenka loo magacaabay walaalkiisa hadda waxa gudoomiye ka shirkadda oo Xasan la dhaho marka waxa waay ninkan nin taajir oo ilaahay xoolo sii ma ahan
waxa way shirkadda abiis ka dhintay madax uu ka shaqeeya marka waa nin mishaar qaato bonusna ka qaato lacag fiican ka qaato horta ninkaas waa Xuseen ninkaas waa gabadhan asaga guursanooy gabadhan ninka taqawaad taqaani fanaanada kiin jaamac cabdi cilmi allaha waa fanaan waxa dhalay oo jaamac yar ninka yaqaan waa yaqaana oo mutaqaana aad u culus dhalay odig waa nool yahay mutawaajiga wuxuu joogaa ingiriisku jooga horta arooskan sababta Dubai u dhacay wax kala maahan waxa way waxa la diidaa buuq inuu ka dhaco Hargeysa inuu ka dhaco oo hadda kor waati showgeeda khalaas laga sameeyay dhulbaantina waa isku dhaxsiin nimanka isaaqa marka taasa marka waxay keentay inay go'aansadeen inay horta Dubai arooskooda ku dhigtaan fanaaniina imaad doono oo lagu casuumi doono waa qasada oo dhan isku soo duub oo ninkan waa oo Xuseen Axmed Daahir Allah ninkan baxsanay oo reerkooda ku magac dheeriin nin xoolo asaga uu leeyahay maahan nin ganacsado oo shirkadu ganacsado isugu yahay maana shirkada asaga uu leeyahay ganacsi maahan taas ma fahanteen isku soo wada duub waxa leenahay hambaliyo Xuseen iyo kiin jaamac isaaq badan waa aragtay maalmahan shalay dhan waxa way qaarkood waa kacsan yihiin qaarna waxa way waa soo dhaweeyeen sida habar awal wuxuu ku fiican tahay wiilkooda hadduu gabar kala guursanaa qabiilka oo dhan waa soo dhaweynayaan gabadhoodan haddii ninka hadda guursanayso qabiilkooda u dhasho waxa way soo dhaweeyaan laakiin isaaqan kale waa waxa hadda foohdada wado dhagax soo turturaayo guurkan diidan taas waa fahanteen assalaamu calaykum